salaamullaahi calaykum halkan waa barta aan ku leenahay youtube-ka soo dhawaada barnaamijkan dabagalka qaybtiisa koobaad aynu ku eegi doono dhalinyaradii loo qaaday wadanka Eritrea waxaa lagu soo waramayaa in xasuuq loo geystay kuwa kalena lagu dilay dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Tigreega ee TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya kuwa oo Eritrea lagu eedeeyay inay qayb ka qaadatay waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee wasaare horumarka Kheyre oo lagu eedeeyay inay iibsadeen dhalinyaradaasi ooyinta hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa waxa ay si aad u saameynaysaa dadka damiirka leh banaanba xoogan ayaa magaalada Muqdisho ka soconaya arrinka looga soo horjeeda soo dhawaada qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa waxaan idin soo gudbin doonaa xog rasmi ah hayeeshee haddii aad nagu cusubta waxaan kaa dalbanayaa in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan halkan aad naga daawanayso subscribe noo saar hagaag barnaamijkan waxaa igala qayb galaya Dr. Mukhtaar Maxamed Cali oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda arrimahana maalmihii ugu dambeeyay baaritaan ku hayay doctorka ayaan ugu horeyn soo dhaweynaya waxa aan weydiiyay maxaana la wadaagi kartaa aad u maasanta waxa weeye nimanka dhalinyarada maaragtay muddo ku maqnaa Eritrea haddana la sheegay inay ka qayb galeen dagaalkii Itoobiya dhexdeeda markii TPLF iyo Abiy Ahmed al-Wasaare ay isqabteen waxa weeye waa arintaasi waa jirtaa raggaasna beenaa loo sheegay waxa la yiri maaragtay marin habaabina lagu sameeyay waxa la inay qaadayaa maaragtay wadanka Qatar ma qaadina waxa loo qaaday meesha la yiraahdo Eritrea loo qaaday halkaas la geeyay halkaas ku maqnaa jireen ayagoo la moodaba inay Qatar jiraan ayaa dagaalkii laga wareeray inay ku jiraan oo maaragtay Itoobiya la keenay ayagoo laga soo qaaday Eritrea marka waxa weeye cid ogeyn ma lahan nin ka warbixin karna waa yaraa waxaan isleeyahay Kheyre iyo ninka la yiraahdo Farmaajo si toos ah shakhsi ooga ujeedka ay kala hayeen waxa weeye ujeed guracan u ah ilmo la xaday ahaayeen ma ahan ciidan la diray ciidanka markii la diray saas looma diro dad Soomaalidu ciidan ahaan u diratana ma ahayn sharcina kuma ay sabixin balaag markada ku baxay suuqa madow ay ku baxeen waa la xaday maarta dhalinyaro la xaday ahaayeen ujeeda laga lahaa ujeedka laga lahaa in laga gaaray in kale aanu garan maayo waxa weeye marka waa la xaday Farmaajo aan xaday Kheyre aan joogay ayaga xaday ayaga ka masuula waa dambi waa criminal waa waxaan adduunka ka dhicin hadeerna waxay ku soo caan baxday ayaantii hadda maalmihii dhawaada United Nations ay investigation ka wadeen maaragtay Itoobiya dhexdeeda dagaaladii sokeeyo ka dhacay ayaa haddana ay ku soo caan baxday maray soo baxday waa suuqay gashay Farmaajo damiyay waxa weeye marka ayaga dambiga iskale dadkii dhalay iyo awlaadaas maaragtay Soomaaliyeed iyo maaragtay sida loo bahdilay sida sharafka loo qaaday sida lagu maaragtay lagu takrifay dhiigooda sharaftooda iyo maaragtay awoodooda iyo waalidkii dhalay waxa weeye waa dad xaasid ah halkaas dhalinyarada xaasid ah helay cadow baa helay kuwan ilaahayna aqoon rasuulkiisana aqoonaa helay kuwan maaragtay dal waxba ka aqoonaa helay maamul dad waxba ka aqoonaa helay qabyaalaystayaal helay kuwa qabyaalada u googaay oo maaragtay ayaga dhan maaragtay qurun ay helay suxunayna u dhaqmeen waligeena ma maqal dad saas u dhaqmay dad saa u dhaqmana ma ana maqal Soomaali saa u dhaqantana ma ana maqal Farmaajo u dhaqmay waana baqayaa hadda ma uu sheegi karo waxa weeye election ayaa la galaaliyay hadeerna election ma wada extension oo ku jira waa iska aamusan yahay sidii abeesadii iyo madaxtooyada fadhiya Kheyraha midka la leeyahayna waa iska habaya asaguna waxa weeye waxaan marka soo jeedinaya in la banaan baxo in lagu banaan baxo ilmihii in laga dhalaaliyo Farmaajo hadduu ilmaha keeni waay kuwiisa in loo qaato oo kuwiisa loo qaato aan laga tagin qobaha iyo qoraxda iyo banaan baxa dadka cunno loogu geeyo maaragtay hooyooyinka banaan baxaya oo cabanaya oo loo gafay oo maaragtay dalkooda lagu dhibaateeyay oo qabiilka ay yihiin lagu dhibaateeyay oo maaragtay Soomaalinimada lagu dhibaateeyay oo noocaas maaragtay cadaalada loo dhaqmay inaysan meesha ka tagin ilaa result la helo natiijo la helo aan soo jeedinayaa hana la isku duubnaado dadka dhan ay yimaadeen raashinkooda bil ha ku cuneen meesha banaanka waa tahay doctor ciidamadan loo qaaday Eritrea intooda ugu badan waxaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ee ciidamada Itoobiya ay la galeen jabhadda TPLF arinta maxaa ka jira aad u maasanta waxa weeye saas ayaa wararku sheegaan in maaragtay rag badan ay ku geeriyoodeen oo ilaa maxaan ku yiraahdaa 400 ku dhawaada kuwa badan ay ku dhaawacmeen kuwa ay maaragtay ay soo baxeen oo Itoobiya dhexdeeda Itoobiyada kale lagu laayay kuwa maaragtay meelaha yar oo laga helaa jira waxa weeye marka xasuusta loo geystay waa waxaan adduunyada ka dhacay caalamka dhicin waa wax fajicisa waxa marka laga rabaa maadaama ceebtaasi dhacday dhibaatada niman waaweyn ay sameeyeen
farmaajo uu sameeyey kayrana uu la jiray waxaa marka la rabaa in runta la isu sheego dadkii ay dadkii loo heliyo lasoo fariisto ilmihii la sheegay meesha ay ku jireen iyo meesha ay geeyeen iyo waxay u geeyeen iyo inta nool iyo inta dhimatay ayaa la rabaa. waa gaf aan adduunyada ka dhicin weeye weli gafkaasoo kale anugu maana maqal. askar ma ahayn, askartu markii la qaadayo wasiirka gaashaandhiga og, taliyaha ciidamada og, horintay ka tirsan yahaan la ogyahay, nidaamka ay u baxaana la ogyahay. askar ma ahayna waxa weeye qandaraas kale u ahaa. anigu waxaan isleeyahay iib waa la iibsadaan, anigu isleeyahay in la iibsaday ayay u cadda oo la xaday ilmahaas, waa la xaday waana la iibsaday. ma garad dadka reer muqdisho u badan waxaan marka soo jeedinayaa arrinkaasi farmaajo inaan looga kicin. dembiguu galay, kayrana waa kula jiraa. maxkamadaha caalamka in la geeyo oo statementkooda la bilaabo, magaaladana maaragtay dadka joogaa ay isku soo baxaan. shaqo kale inaan la qaban dadka waalidka ah ilmahoodu baabeen oo la silciyey oo bahdilka noocaasa lagu sameeyey. gaalada xataa kama suurooda waxa dadka farmaajo arrintaa u sameeya kahor iyo kayre marka ayaa hadda hawihii soo aruurinaysa. farmaajona dhinaca kasoo galay baa laleeyahy. madaxweynaha eritrea geesu kasoo galay, abiy axmed waa ra-iisul ethoopia geesu kasoo galay. dambiyadaas waxa weeye marka intaasoo dhan la qarinayo. marka wax cuntoba maahan, wax saxana maahan, xalaalna maahan. maaragtay inuu intaas maaragtay ilmada soo korinayay oo dadale oo soomaaliya oo maaragtay af soomaali ku hadlaya inta la xado oo la gato qandaraas lagu qaato intii soo hartay in layaan keenin maaragtay soomaaliya ha lagu baabiya meeshooda inuu farmaajo yidhaahdo oo criminal ahaan uu ka baqayo maxkamadda caalamiga. saasa ayay arrintu ay u muuqataa. waxaa leeyahay marka yaan laga harin, waa criminal farmaajo, kayrna waa criminal hadduu kula jiray laga hari maayo, lagana kici maayo. waxa weeye wax dhacana maahan, adduunyada wax laga filan karna maaha. waa tahay hooyooyinka banaanbaxaya ee ilintu ay ka qubanayso yaa aamusi karaya, yaase qaadaya eedda arrinkan hooyooyinka soomaalida ka ilmaysiinaysa? hooyooyinkaas in laga ilmaysiyo waa loogu talagalay. ilmahoodiyaa la qaaday, beenaa loo sheegay, dal carab oo lacag lah loo qaaday aa la yidhi. waa la siray, ilmihii waa laga gatay. haddana wixii nool in loo keenaa la diidan yahay. wixii dhaawac intii dhimatay waaba dhimatay, intii dhimatay iyo maaragtay wixii dhamaa intay isku soo daraan inay keenaana loo qaataa. intay maaragtay ay farmaajona ka aamusnaa kayrana u dhihi lahaa musharaxkaan mar kalaan isoo sharaxaya wax lamida oo meelaha la warwareegayo. waxa inay aamusiyaan laga rabo waa farmaajo. inuu soo baxaa laga rabaa, inuu la hadlaa laga rabaa, inuu dadkii hadduu dhinteen magdhaw u dhiibaa laga rabaa. magdhawaba jibaaran oo dhebela inuu dhiibo, kulligood inuu ka dhiibo, wixii noolna uu keeno, apologizena uu weydiiso ummadda soomaaliyeed ayaa laga rabaa. hadduu sameyn waayo waxaan leeyahay dagaalkii muqdisho ka dhacay oo extensiga lagu hor istaagay muddo kordhinta kiyo kale hadda ciidamada soo galeen. farmaajo ha la qabto, waxa uu la socdo ha la qabto, waxa ilmihiisa ha la qabto, waxa dadkiisana ha la qabto. dadka haddii la waayo saasna maaragta lagu hooyooyinku maaragta ku ilmo beeleen maaragta farmaajona saasuna nafta looga qaado iyo wixii isaga la socda iyo wixii ilmihiisa iyo wixii adeeru yahay intaba wax kaloo la sameeyo ma lahan. waa waxaan adduunyada ka dhicin adduunkan oo maaragta ilaahay dhisay waxaan ka dhicin uu ku sameeya dadka. teeda kale waxaan leeyahay reer muqdisho soo baxo xisaabto oo bal wax isweydiiye oo dadkaas waalidka oo dhibaatada loo geystay bal maaragta bal wax weydiiya arka meeshay ku beeshabato. yaan loo kala harin, ha loo heliyo hooyooyinka, aabbayaasha ha loo heliyo, ehelka ha loo heliyo, dadka la xasuuqay oo kibirka lagu xasuuqay oo beenta lagu xasuuqay oo ilmahoodi la gatay oo maaragtay aan waxba la weydiin. waa yasmo fiiri, waa la yasaya in xataa ilmahoodi loo keenaa ayaa la diidan yahay. waa yasmo. dadkaasi toloobayaal maahan, ehelay leeyihiin, tolay leeyihiin. soomaaliya o dhan ay ka dhiseen, soomaaliyana ha u kacdo, reer muqdisho ha kacaan. haddii taas wax laga qabo waayo gabar soomaaliyeed guur ma leh, gabar reer muqdisho maaragtay reer muqdishona guur ma lahan. haddii arrintaa wax laga qabo waayo guur ma leh. gunnimada nama badi karaan, farmaajo ee qayrna nama badi karaan. dadka maaragtay 60 milyan muqdisho ku nool ama 20 iyo 60 milyan soomaaliyeed ma badi karaan gunnimo. ha loo istaago, ha la qabto, ha la dacweeyo, wax alla wixii lagu samayn kara ha lagu sameeyo. saasaan soo jeedinaya. دكتور مختار محمد علي وقدك تليفون كي مقدشة يجو ورمية أيو كاسي هذا يالجود أنا قيبتي كباد برامج كده بقالك وركا وعن جعل إن أنت أكوها كيو وتكون هتطلع الصعود كاجا فضلا سبسكرايب نوصل هالكن إن بعدينه.